Abdi Yusuf Hassan, 34,264 votes. Camera. anagu waxay noo tahay farxad sharaf iyo karaamo maanta inaan maanta ku guulaysano kursiga Kamukunji xaafadda Nairobi mar afraad baa aniga la ii doortay taasna runtii waxay tahay xishmad ay muujiyeen shicibka degan Kamukunji waxaan aad ugu faraxsanahay haddana in dhowr MCA oo Soomaaliya laga doortay xaafadda Islii waxaanan dhowaan sugaynaa jawaab taariikhi ah oo ah doorashada madaxweynaha Raila Amolo Odinga oo xisbiga Azimio ah marka runtii guul bay noo tahay doorashadii shalayta dhacdayna waxay ahayd doorasho dadka Soomaalidu ay aad ugu soo baxeen codkoodana ay si fiican u cadeysteen marka waxaan leeyahay waa guul noo soo weeyahoodatay kulligeenba kursigan xildhibaannimada anigu ammaanu ii yahay shantii sane hore aad ii dhiibteen waan ka soo baxay ammaanada shanta sane dambena waxaan idiin ballan qaaday inaan idiin shaqaynayo si cadaalada si daacadnimo ah horumar iyo midnimona aan ka shaqaynayo marka hambalyaan leeyahay guul ayaa noo soo hoyatay aad iyo aad baanad u mahadsantihiin waxaana halkan ila jooga MCA-ga laga doorta Islii North dabar iyo MCA-ga laga doorto Airbase waxaa kaleetoo nala jooga MCA-ga laga doorto xisbigeena Azimio xaafadda Islii South iyo Pumwani Hashim oo California asagana laga doorto shantaasi xildhibaanee yaryar iyo anigu xildhibaankooda weyn ayaan wada joognaa halkan aad iyo aad bay u faraxsan yihiin runtii dad qiiraysan baad halkan ku arkaysaa dad xamaasaysan oo aad iyo aad u faraxsan oo aad iyo aad ugu dabaaldegaya guushaasi noo soo hoyatay ballanqaadkaygu haddee horey baan u caddeeyey ballanqaadkaygu wuxuu ku dhisan yahay horseed horumar hagar la'aana marka waxaan aad iyo aad ugu dadaalayaa dhismaha xaafadda wixii qabyada ahaa ee naga noo dhammaystirnaa baan soo dhammaynayaa jidadka ha noqoto nalalka ha noqdeen iskuullada ha noqdeen nabadgelyada iyo xaafaddoon sare u sii qaadayno oon sii wanaajinayno dhismaheeda wejiga ay leedahay quruxdeeda iyo nabadgelyada dadka iyo ganacsiga oon sii furayno oon sii ballaarinayno qayb weyn aan ka qaadanayno sidii xasiloonaanta iyo wanaagga xaafaddana loo xoojin lahaa laba MCA bay dadka Soomaalida soo doorteen taasna waxay muujinaysaa in ay ku kalsoon yihiin dadka siyaasiyiinta ee xaafadda ayaguna ay u soo baxeen labada nin ee la soo doortay ee Islii Airbase iyo Islii North laga soo doortayna qayb weyn bay ka qaadanayaan hawlaha faraha badan ee xaafadda looga baahan yahay qashinqaadka sewage-ka biyaha iyo waxyaalo lamid ah oo dawladda hoose ay wakiil ka tahay ayagana noo sheegi doona siday wax uga qabanayaan annagu waxaan rajaynaynaa 24 saac ee soo socda in lagu dhawaaqi doona musharaxa madaxtooyada madaxweynenimada ee dalka Kenya oo ah Raila Amolo Odinga inuu ku guuleysanayo asagana iminka u sita waxaan rajaynaynaa in si degdegana loo dhaariyo dawladda cusubna ay hoosheeda u qabato dawladdaas oo sugayno inay sare u qaado arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada dalka Kenya oo meel aad u sareeyo oo horay u dhicin ay gaarsiiso bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Qadar Maxamed Dabar Soomaalida xaafadda ku nool degmada ugu weyn ee Nairobi iyo Kamukunji iyo Islii North ee Soomaalida aad ugu badan tahay degan tahay waxaan hambaliyo iyo mahadcelin u dirinayaa ummadda Soomaaliyeed ee aadka tirada badan u soo baxday ee ii codaysay kursiga MCA-ga ee xaafadda degmada hoose ee dawladda ee Nairobi waxaan leeyahay kursigaas waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baa u mahadsantihiin ammaanadaas ay dhibteen aad iyo aad baan uga soo bixi
waana idin mahad celinaya sida aad ku firaha badan ee tirada badan oo soo baxdeen oo igu codeyseen waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin insha Allah waana idin shaqeyn doonaa si cadaalad ee daacad baan idinku shaqeyn doonaa waxaan idin leeyahay dhibaatooyinka xaafadda haysto oon ka wada hadalnay idin ballan qaaday si daacadnimaan idinkaga shaqeynin hawsha ay dhibiteen waan ka soo bixi doonaa insha Allah wallahi dhibka ugu weyn ee xaafadda haysto waa qashinkaas oo meel walba yaalo waa sewage kaas oo xiran oo kala soconin waa nadaafad darradaas inta dawladda hoose ayaa iskale insha Allah arintaas waa arinta ugu horeysa oo rabo inaan wax ka qabto qashinka dhibkiisa dib oo si sahlan ma aha wuxuu u baahan tahay hawl badan wuxuu u baahan tahay waqti badan dhaqaale badan iyo wada shaqeyn badan dawladda sare dawladda hoose iyo guddiga ganacsatada waxaan insha Allah rajeynayaa in markii saal ii dhaariyo in guddiga ganacsatada xaafadda ku nool aan wada fadhiisano aan ka wada shaqeynay sida xaafadda bilicdeeda aan u horumarin lahayn maadaama xaafadda xagga wadooyinka ay ka horumartay ee xaqqa wasaqda iyo sewage-ka iyo nadaafadda ay ka dambayso anigana wixii mas'uuliyadii saaran waan ka soo bixi qashinkaasna xal baan u keeni wadamo badan ayaan tagay nidaamo badan ayaan soo arkay dawladdana insha Allah hadda dhalatay ee dawladda Azimio oo rajeynayna saacadaha soo socota in lagu dhawaaqo madaxweynaha Raila Amolo Odinga ayaa wixii kamid ah in magaalada Nairobi bilicdeedu kor u qaado meelaha kor loo qaaday ay kamid tahay degmada Kamakunji ee suuqa ugu weyn xaafadiisii uu yahay oo laga soo doortay iyo suuqa Kikomba market marka insha Allah waxaan rajeynay in arintaasayto oon aad ugu guuleysano islii ay noqoto meel loo soo dalxiis tago oo loo soo imaado qurux badan ganacsi loogu imaado dalxiis loogu imaado wax walba loogu imaado suuqa weyn ee xaafadda islii ku yaala ee muddo ah islii market in muddo ayuu keeskiisa socday maxkamad ayuu yaalay aniga hadda xafiiska wali ma soo gelin laakiin xog waxaan hayaa in keeskii maxkamadda uu dhamaaday oo suuqa lagu soo celiyay gacanta dawladda oo rabo World Bank inay dhisto insha Allah ilaahay duu nafta igu siimo waan dabageli arintaasayto waan soo dhameynay si waratada aad ku fara badan ee xaafadda ku nool Soomaalida danta yar ee suuqa u gasho suuqaas waa suuq weyn dad fara badan ayuu qaadi insha Allah waxayna noqon doontaa howlaha wixii kamid tahay aan rabo inaan ka shaqeeyo si suuqaas aan u soo celiyo aan u dhisno sida ummadda Soomaaliyeed ee danta yar ee waratada meesha ugu xarunto